wadada siyaasadda loo soo maro inay noqoto ururada siyaasadda ama axsaabta siyaasadda wadada siyaasadda inay noqoto jidkaas muddo dheer lagu qaatay alxamdulillahi rabbil caalamiin hadda wadadii waan kusoo laabanay maanta sidaa darteed yaad waxaad uga hor fadhisaan adinkoo matalaya ururadii siyaasadda ee diiwaan gashan adinkoo matalaya marka waxaan rabnaa maanta oo kulankan uu ballansanaa waxaa jirta gogol uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo looga tashanayo arrimaha masiiriga ah ee dalka hadduu yahay xaalad amni iyo xaalad siyaasadeed intaba looga tashanayo qolada ugu horeysa runtii u aragnay inay arrintaas u badan tahay in lagala tashto waxay noqotay ururada sida rasmiga ah oo sharciga ah u diiwaan gashan inay noqoto ayaan u aragnay sidaa darteed door muhiim ah waxaad ku leedihiin arrimaha siyaasadda Soomaaliya maanta wixii laga bilaabo ayaad ku leedihiin waxaan rabaa si uu markaa guul u gaaro oo markii ugu horeysay guul u gaaro gogoshaas madaxweynuhu ku baaqay nidaamkeena oo siyaasadda Soomaaliyana u fariisto waxaan mari doonaa wadamada nidaamkaas oo siyaasadda iyo ururada ayaa hadda wixii ka dambaysa mari doonaa markii hore siyaasadda nooma nidaamsanayd siyaasaddeena Soomaaliya muddo dheer fawda ayay ahayd inaan fawdadii laga saaro oo nidaam lagu soo celiyo sidaa darteed maanta gogoshaasi waxay u taallaa sidii looga wada gudbi lahaa wadatashi looga gudbi lahaa iyadoo la isku raacsan yahay looga gudbi lahaa nidaamka cusub ee aan la keenay oo hadda mataqaanaa ururada siyaasadda ku dhisan loo gudbi lahaa